xuska 25 guriga ka soo wareegtay goonistaagga Jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May ayaa saaka si weyn looga xusay degmada adag iyadoo ay saaka wacdara soo bandhigeen ciidamada asluubta iyo booliska bahda waxbarashada ururada bulshada xildhibaanada golaha deegaanka dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ciidamadu socodka dakacayaar ah ay ku soo mareen bartamaha suuqa oo ay kaga soo bilaabeen dugsiga sare ama secondary school markaana dadweynuhu ku dhawaaqayeen ereyada iyo halkudhigyo ay ku soo dhaweynayeen 18 May waxayna calanka astaanta oo ah Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo markii dambe iskugu soo biyashubtay geedka nabadda khayriyada waa degmada garadag halkaas oo hadallo oo lagu soo jeediyeen madaxdii ka soo qayb gashay munaasabadan ugu horreeyna waxa halka ka hadlay maayirka degmada garadag mudane Faarax Aadan Ciise madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland golihiisa wasiirada iyo golayaasha kale ee qaranka sidoo kale waxaan maanta salaaniya habayo u direynaa dhammaan ciidamada qaranka ee kala duwan gaar ahaan kuwa ku jira jiidaha hore sidoo kale waxaan habayo salaaniya dhammaan ummadda reer Soomaaliland sidoo kale iyaguna waxa halka hadallo kooban ka soo jeediyay taliyaasha ciidanka booliska iyo asluubta maamulka wasaaradaha waxbarashada deegaanka hawlaha guud iyo guriyeynta xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo xubno ka mid ah cuqaasha iyadoo halka hadal dardaaran uu ku soo jeediyay maayir ku-xigeenka degmada garadag Yuusuf Cabdi Axmed hadaladoodina waxa ka mid ahaa sida tan maalintan aynu xornimadeena u dabaaldegayno isla markaana nasiib u yeeshay inuu midhihii gobonnimada uu shacabkiisa u guro محمد الصيري مقبايا قرنك جمهورية الصومال قرضك